maanta waa islaamir baad joogtaan kusoo dhawaada cashar cusub oo ah transformational formula. Transformational formula waxa weeye waa markaad haysatid formal kadibna formalka xaraf ku jira aad ka dhigayso horgale. Marka sida caadinka formulada xarafka wuxuu yahay horgale. Marka xarafka horgalaha haddii isaga lagu siiyo oo xaraf kale oo formulada ku jira aad kala soo dheebaxaysid oo ka soo dhiranaysid baa waxaa la dhahaa transformational formula. marka casharkan waa cashar aad muhiim oo ah haddii xisaabta physics marka dhankooda laga hadlayo aan marnaba laga maarmin. cashar walba oo marka qofku dhiganayo oo cashar walba oo marka qofku oo xisaab iyo physics u dhiganayo waxa soo galasa transformational formula oo meel walba way ka hormaanaysaa transformational formula. sidaa awgeed waxaan soo hormarnay casharkeega oo waxaan soo hormarnay casharada hadda nagu xiga oo noo imaan doona waxa ku jira transformational formula. marka haddaad transformational formula waxaad kaga baahanaysaa haddii aad hal formula taqaanid ma baahnid formulada hoos imaan dhan inay xafidid ma baahnid because of waa automatic waad ugala soo baxaysaa haddaad taqaanid sida looga soo baxo. marka example hadda tusaalaha koowaad aan qorno oo nahno example 1 haddaan hadda waxaan sanaa a waxay la mid tahay b oo lagu daray c tusaalaha maan haystaa. marka haddeer a waxa weeye waa subject of formula oo a waxay u tahay subject of formula formuladan. tusaalaha waxaa la weydiiyey c waxaa la yidhi c waa maxay subject c baa la iga doonay waxaa la yidhi soo saartaa c intii a iyo b laysiiyey labadana laysiiyey a iyo b kadibna c marka haddeer formulada ku jira laakiin sidaan horgalo usoo dhigi lahaa usoo dhiran lahaa magac haddaan aqoon way adkaanaysaa inaan soo bixiyo. maxaan odhanayaa saan usoo bixiyo c-daas aan la soo baxo waxaan odhanayaa maadaama b iyo c ay isku darsan yihiin saan sidan keliya khaliya ay cilad usoo baxdo waa inaan b-dan iska jaraa waan iska gooyaa. saan b-dan iskaga gooyana b-dan hadday ay ku dar tahay waa inaan iska jaraa b-dan dhinaca ka jaraa b oo b laga jaray b-dan waa hale dhinacna b ka jaraa xisaab haddii dhinac laga jaro b dhinac kale waa laga jaraa. marka maxay noqonaysaa a oo laga jaray b waxay la mid tahay b oo lagu daray c oo laga jaray b. marka labada b baan bas goosanay because b waa b ku dara plusa iyo b minusa. marka minus iyo plusna waa marka b-daas iyo b-dan isla goosanayaan. marka meesheeda maxaa igu soo haraya c khaliya waa sidan doonayay. marka waxay noqonaysaa a oo laga jaray b waxay la mid tahay c. marka waa maxay c-dan doonaya inaan subject formula ka dhigo waa taa waa c. hadda waxaan ku helay marka haddii c-da laga doono waxa weeye waa a oo laga jaray b. waxaan maleynaa taa fahanteen ku darta tahay marka waa tusaale kale oo laba haddaan bixino iyadoo kajar ku jirta camal tusaale oo kale. tusaale waxaa sitaa d waxay la mid tahay f oo laga jaray k kadibna waxaa la weydiiyey waa maxay f-taas la yidhi f-taas la weydiiyey oo la yidhi f-taas soo saar subject of formula ka soo dhig. marka f-taas subject of formula uga dhigayaa wax kale odhan maayo waxaan odhanayaa f-tan iyo k-dan minus baa ku jira marka minus k-da saan isaga saaro waa inaan ku daraa lidkeeda oo ah plus k waa inaan ku daraa. marka waxaan noqonaysaa marka d waxay la mid tahay ama laba dhinac marka hore ka jar baadaad doonto waxaad tirahdaa intaan isaga saarayso sorry waxaan ka odhan soo gaabin karaa waxaan odhan karaa labada dhinac wax ku dartaa k ku dar. marka waxaan noqonayaa d oo lagu daray k waxay la mid tahay f oo laga jaray k oo lagu daray k. marka maxaa isla baxaya k-daas iska saarayaa soo ma marka ku dar minus k iyo plus k isla baxayaan. marka meesheedii maxaa igu soo haraya oo aan haystay waxaa igu soo haraya d waxay la mid tahay d oo lagu daray k waxay la mid tahay sorry si fiican loo qoro waxay noqonaysaa d oo lagu daray k waxay la mid tahay f. marka f-taasaan raadinayay waa taas. tusaale kaloo saddexaad haddaan bixino tusaalahan waxaa haysataa marka waa ku dar kuwan tan waa tan tii hore waxay ka jar tii hore waxay ku dartana ka jar bahayd waxaan odhan karnaa marka saas ku darsan yihiin
xarafku waa iska jarsaa waana dhinaca kale waa ka jarsaa labada dhinac waa ka jarsaa marka tusaale ahaan oo kale hadday ku dhufasho ku jirto oo meesha ay ku dhufasho ku lamaan tahay tusaale ahaan waxaad haysataa r waxay la mid tahay 2b oo lagu daray q baa haysataa marka waxaa laga 2b da soo saar waa 2b da soo saari karaa maadaama horta marka hore q da iska saaraya saa 2b da kaliya u helo marka waxaa laba dhinac waxaa ka jadhaa lidkiya kan q da hadduu plus yahay waa ku dare lidkiisaan ka jaraya oo minus ah laba dhinac hadduu minus ahaan lahaa lidkiisaan ku dari lahaa si sula baxaan oo iskaga saara meesha khadka uga saara marka maxay noqonaysaa r oo laga jaray q waxay la mid tahay 2b oo lagu daray q da oo laga jaray q marka maxaa isla baxaya dee labada q minus iyo q plus maxaa isla baxayaan waa minus iyo plus oo iyagu khadka ka baxayaan labadaas marka meesha maxay ugu soo haraya rt r oo laga jaray q r oo laga jaray q waxay la mid tahay 2b marka b khaliyaan doonayay laakiin hadda waxa laba ila socota sidaa wasan labadan aan isaga saaro labadan kuma darsano oo hadday ku darsanaan lahaa waa ka jiraa laba dhinac ka jiri lahaa laakiin way ku dhusan tahay sidaa maadaama ku dhusan tahay laba dhinac laba aan u qaybinayaa saas isaga saaro labadaas laba dhinac markaan laba u qaybiyo waxaa isla baxaya markaa laba loo qaybiyo laba waa hal marka labadan isla qabsanayaan labada tan loo qaybiyo laba loo qaybiyo labadaas waa hal marka maxaa isoo hadhaya r oo laga jaray q waxaa loo qaybiyo labo waxay la mid tahay b marka bdaasaan raadinay marka hadday ku dhufsan tahay qof waa inuu ogaado hadday ku dhufsan tahay ku dhufasha meeshaas ay jirto wax kale samayn maysid waxaad samaynaysaa keliya ood u qaybinaysaa wixii shaygaa la socda ood u qaybinaysaa marka haddaan tusaale kala bixino kaas ku dhufashada waxaa markaa tusaalahaan waxaa ogaan kara ku dhufashadaas haddaan ku darno tusaale kale oo afraad tusaalahaan waxaa haysataa l waxay la mid tahay 2r oo laga jaray q caadi ah waxaa la weydiiyey qdaasaa la weydiiyey oo la soo saar kadibna waxaan odhanayaa keliya labada dhinac r baa ku darsan oo qdan r baa ku darsan qdan minus waxa iska qdan rtana waa ku dar bay leedahay xisaab walba xisaabta ka horeysa xisaabta xarafka ka horeeyaba buu leeyahay ku darkiisa marka tan hadeer qdan way ka dambaysaa xarafkan macnihi calaamadana ka horeysa marka calaamad walba si kala horeeyay buu ku leeyahay marka way ku darsantaa Soomaa marka r-tan iska jaraya iyada inta san qda u helo qdaas marka r-tan hadaan laba dhinac r-tan waa ku dar marka lidkeeda baan ka jaraya meesha mar hadday ka dar tahay waan ka jaraya waxaan noqonaysaa l oo laga jaray 2r waxay la mid tahay 2r oo laga jaray q oo laga jaray 2r kale maxaa sabaxay 2r tan iyo 2r sabaxaya midna waa ku dar midna waa ka jar midna waa minus midna waa plus waxaan l oo laga jaray 2r waxay la mid tahay minus q marka qdana minuskaas la socday marka minuskan hadda waa sida ku dhufashada kale saan minus iska saaro waan u qaybinaa dhinaca xagana minus u qaybiyaa xagana minus u qaybiyaa marka maxay noqonaysaa minus l oo lagu daray 2r waxay la mid tahay labadana waa sabaxaya minuskaas iyo minus sabaxaya waxay tahay q su'aalahaasina waa saas marka su'aalo kale haddaan bixino oo shanaad ayaan karta u qayb ayaan karta iyadoo qayb ku jirta ayaan karta shan oo kale ayaan karta qayb ku jirta marka su'aalahan waxaad taqaanaa aan soo dhiganay dhawaato pressure-kii force-kii iyo pressure-kii iyo area-da xiriirka dhexeeya marka pressure wuxuu la mid ahaa force-ka loo qaybiyay area-da marka haddaad subject formula taqaanid ma baahan inaad xafidid yani force la soo baxay area la soo baxay oo ku fududaanaysaa su'aalahan waxaa la weydiiyey force-kaas la soo baxay f-taas soo salbay f-taas kadib waxaan odhanayaa maadaama haddii laakiin u qayb meesha ku jiro ayaa kana talo equal kaliya waxaan odhanayaa maxaa isku dhufataa cross multiplication ku dhufo kadibna waxaan odhanayaa kaliya tantaas ugu dhacsaa cross multiplication waa sida on lid baa isku dhufanaysaa sidaas iska soo jeeda kadib maxaa ii soo baxaya waxaa isku dhacaya f-ta iyo hal marka waxay noqonaysaa f oo lagu dhuftay hal waa ft marka waxay noqonaysaa f waxay la mid tahay
b oo lagu dhuftay a taas waa formulada markaa force haddaan rabnaa force raadiyo soo raadinaya labadaas isku dhacaya bal tusaale ahaan waxaa la weydiiyey area soo saar dalka waa 6 ka dhigo tusaale ahaan 6 ka dhigo si area loo saaro pressure wuxuu la mid yahay force-ka loo qaybiyay area waxa lagu yiri waxa soo saartaa bal force-ka area soo saar area sidoo kale waxaan odhanayaa labadaas cross multiplication ku dhufay noqonaysa maxay noqonaysaa markaa force f halba ku dhacaysa sida tan oo kale waxay la mid tahay pressure-ka oo lagu dhufay area kadibna force waan doonayaa leena b da saas saara waa ku dhufanta Soomaa oo qaynaya bis waxaan odhanayaa markaa xaggan b u qayb xaggan b u qayb فبيدن يبينا صباحية إذا إحنا نوصل force لو قيبي pressure كل من يهاي area ده force إن formula سنوا formula area ده مركا شفتك إنه بيكون في عيا واحد كلام ما هو formula كست عرفتي أصور درسي أصور درسي كرتا إن شاء الله 10 كنا 10 كل حاجة وحنا نقارن دونا يسوي سي يعني كانوا صيفة فاصلة الفورمولا يكبرن غير كلا فورمولا كمية أو خمس سعرك maanta ka ku jirnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadaar raay qabtida mas'aal qabtidna noo soo qor commentiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh assalaamu calaykum meel baad joogtaan